dadku wacdiyay maalintii macaa ee sadaqada ka hadlay ee sadaqada ugu dheeraaday islaantiisna masaajidku tukanaysa xaaskiisii guriga markuu yimi uu saanta qaladii weydiiyay baa tiri markii aan qeerooday sadaqada ka hadashay wixii guriga yaalay waa bixiyay guriga maanta xuma yaala aad buu arrintii uga xumaaday waxay ku tiri maxaad ka xumaatay ilaa sadaqada adaa ka hadlay wuxuu anigu dadka muslimiinta la hadlayo maadaan kula hadlay anigu adiga kulama hadlayo dadkaasaan la hadlayo yaynaan noqonin markaa dad isla hadlaaya oo hadalkana meel kale u xawilaya yaynaan noqonin diintu innagayna la hadlaysaa madaxday la hadlaysaa ummadday la hadlaysaa allah inuu anfaco weligay qof aan u dhigo dhaga hadal ka weyn weligay allah ima soo marin waa xasan sheekh maxamuudkii lahaa weeye ninku $400 buu haystaa $400 baa mushaar loo siiyay xaguu ka keenay sarahan dhaadheer iyo daarahan dhaadheer iyo xaguu ka keenay wey marka waxaa weeye diintu adigna way kula hadlaysaa wey xasan sheekh maxamuudow ma aha inaad adigu dadka diinta u sheegto ma aha marka hore markaad adigu isa saxdo yaa dadka kalena aad sixi kartaa baa la leeyahay marka wuu quslayaa wuu isku quslayaa waxaan la yaabanahay qaab xumada meesha ka socota iyo duurxulka loo durxulayo uu arkayo hataa unan waxba muxuu ahaay una qajilaynin hataa ma qajilaaya hataa waa quslaya who cares waayo calashaan marka ninkani nin xariif waayo nin oo aan la yaabay waayo nin aan la yaabay waayo bismillaahi raxmaan wallahi wuu kordhigay caadi buu u kordhigay laakiin ma fahmayo fahankii baa ka maqan ilaahay subxaana watacaala fahankaa tuso wuxuu yidhi dee inaga inala hadlaysaa diintu innagana way inala hadlaysaa dadka keliya shacabka keliya lama hadlayso ya ku soco calaykum waraxmatullah sheekii masaajidka wacdiyey maalin jimcaha ee sadaqada ka hadlay ee aad sadaqada ugu dheeraaday islaantiisna masaajidku tukanaysa xaaskiisii guriga markuu yimi uu saanta qaladii weydiiyay baa tiri markii aan qeerooday sadaqada ka hadashay wixii guriga yaalayba waan bixiyay baa tiri guriga maanta xuma yaala aad buu arrintii uga xumaaday waxay ku tiri maxaad ka xumaatay ilaa sadaqada adaa ka hadlay wuxuu anigu dadka muslimiinta la hadlayo maadaan kula hadlay anigu adiga kulama hadlayo dadkaasaan la hadlayo idinka dowladdaadana ma hadlaya dadka shacabkaan la hadlaya dadka shacab waxaa weeye ilaahu kuma sirina hebel baan siray oo kale wey ilaahu kuma sirina hebel baan siray ilaahu kuma sirina hebel baan siray ilaahu kuma sirina qabiil hebel baan siray ilaahu kuma sirina qabiil hebel baan siray oo kale wey marka idinkeeda lama hadlaynine waxaan la hadlayay dadka shacabka ee aan rabo inaan indhaha u cameeyo ayaan la hadlayay wey sheekadani qofkay ku socota nin walba wuu garanayaa bal wakuka haya macaaka alfa salaama wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu